kulanti wacan daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa channelkeena Rumaal Media alaba halkan waxaan idinkugu soo gudbinaa xogii u dambeeyay dhacdooyinka caalamka gaar ahaan kuwooda ugu waaweyn intaad muuqaalka daawanaysaan waxa muuqaalkan idinkugu soo gudbin doonaa warshada ugu weyn ee shidaalka ee Israa'iil oo xilligan ololkeedu uu baxayo kadib markii Iiraan ay ku dhufatay tiro gantaalo ah xogii u dambeeyay khasaaraha rasmiga ee ka dhashay halkan kugu soo gudbin doonaa waxaa sidoo kale muuqaalka inta daawanayso ku soo gudbin doona bariga dhexe dagaalkiisa oo waji cusub yeeshay iyadoona fariimaha jawaadaha hawada la isku marinayo ay soo tarayaan muuqaalka sidoo kale inta daawanayso waxaan kugu soo gudbin doonaa Trump oo wacd ku maray inuu qabsan doono jasiiradda ugu weyn ee Iiraan hadii ay diido wada hadalka ee Mareykanka xogaa soo dhameystiranaya muuqaalka kugu soo gudbin doona hadii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaro muuqaalkeena fadlan subscribe inoo dhegan baleelkan furo si ay ku soo gaaraan muuqaalada kale xiga hadii aad subscribe inoo tahayna muuqaalka inoo share garay like inoo sar soo gaar asxaab badan aragtidaadana waa inoo muhiim in ugu reeb qaybta faalada aynu ku bilaabno warshada shidaalka ee tan ugu weyn ee ku taala Haifa isla markaana muhiim u ah Israa'iil ayaa xilligan idin la hadlayo waxa baxaya ololkeeda iyadoona cirku isku sii shareeray ololka iyo qiica kadib markii Iiraan ay dhowr gantaal ay la bartilmaameysatay warshadaasi wararka ka imaanaya waqooyiga Haifa ayaa waxay sheegayaan in weerar gantaalo ah oo loo maleynayo inay soo qaadeen ciidamada Iiraan uu ku dhacay xarunta shidaalka taasi oo ah warshada ugu weyn ee sifaysa shidaalka gudaha ee Israa'iil warar hordhac ah ayaa tilmaamaya in qaraxyo isxixiga halkaasi ay ka dhaceen kuwaas oo sababay in dab xoogan uu ka kaco warshada maadaama ay ahayd mid ugu weyn isla markaana ugu muhiimsan Israa'iil taasi oo sifaysa shidaalka waxaana la sheegay in dabku yahay mid aad u baaxad weyn maadaama goobta ay ahayd mid shidaal ah olol iyo sidoo kale qiic ayaa cirka isku sii shareeray muuqaalo iyo sidoo kale sawiro laga soo qaaday ayaa muujinayay heerka baaxadda ee khasaaraha waxaana la sheegay in gawaarida gurmadka degdega iyo sidoo kale dabdamiska ay ku hoolan yihiin sidii dabkaasi ay u xakameyn lahaayeen oo dhammaantiis ay u baqtiijin lahaayeen ciidamada dabdamiska iyo sidoo kale gurmadka degdega ayaa la sheegay in si dhaqso leh ay uga howlgaleen goobta iyagoona doonayay in si dhaqso ay u xakameeyaan balse ilaa hadda dabka uu socdo isla markaana ololka cirka isku sii shareerayo daqiiqada ka dambeysa ilaa hadda lama xaqiijinin khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dhacdadaasi balse warbaahinta gudaha ayaa sheegaysa inay jirto cabsi ku saabsan dhaawacyo iyo sidoo kale burbur hantiyadeed oo weyn sidoo kale wararka ayaa sidoo kale waxay sheegayaan in laga cabsi qabo inuu saameyn ku yeesho sahayda shidaalka ee warshadaha tamarta ee dalkaasi dhinaca kale weli wax faahfaahin kama aysan bixinin Iiraan weerarada gantaalada ay u adeegsatay warshada sifaysa shidida Iiraan ayaa sidoo kale waxay xoojinaysaa bartilmaameedyadeeda goobaha muhiimka u ah ee Israa'iil Iiraan ayaa dhanka kale waxa ay sidoo kale weerar lama filaan ah ay ku qaaday warshada sifaysa saliida taasi oo ay ku garaacday tiro gantaalo ah iyadoo la sheegay gantaalada ku dhacay halkaas inay hayeen kuwa ee nooca balaastikada iyadoo la sheegay in halkaas sidoo kale dab xoogan uu ka kacay waaxda dabdamiska iyo samata bixinta Israa'iil ayaa faahfaahin ka bixinin dhacdada qaraxa iyo sidoo kale burbur ka sababay oo maanta ka dhacay warshada sifaysa saliida ee Bazama kadib markii gantaal nooca balaastikada ay Iiraan ay ku weerartay isla markaana uu ahaa ujeedka bartilmaameedkeeda sida lagu sheegay warbixin rasmi ah oo ay soo saareen ciidanka dabdamiska aroornimadii hore ee Saakay burburka ayaa saameeyay dhismo warshada iyo sidoo kale booyada shidaal taas oo keentay dab xoogan inuu si degdeg ah loo xakameyn waayo inkastoo dhacdadu ay ahayd mid halis keeni kartay haddana mas'uuliyiintu waxay xaqiijiyeen inaysan jirin wax khasaare nafeed ah inkastoo la soo tabinayo inuu jiro khasaaro baaxad leh oo ah mid hantiyadeed ciidamada dabdamiska ayaa weli ku howlan qaboojinta goobta iyo ka hortaga in dabka uu ku faafo qaybaha kale ee warshada iyadoona sidoo kale la wado baaritaan iyo sidoo kale baadi goob lagu xaqiijinayo inaysan jirin dad ku go'doonsan gudaha goobta
warar ay baahisay warbaahinta Reuters ayaa waxay tilmaamayaan in wali si rasmi ah loo ogaanin halka laga soo tuuray gantaalka, balse dhacdadan la xiriirinayo inay ka dambeysay Iiraan oo dagaal adag kula jirto Israa'iil sidoo kale Mareykanka, iyadoona Iiraan si gaar ah u bartilmaameedsanayso ilaha dhaqaalaha Israa'iil iyo Mareykanka, iyadoona horey gantaalo dhowr ah ay ugu weerartay gudaha magaalooyinka waaweyn ee Israa'iil sidoo kale Mareykanka, iyadoona dhulka ay dhigtay ama bacagta ay marisay xarumo military oo Mareykanka uu leeyahay sidoo kale saldhigyo waaweyn oo uu ku lahaa magaalooyinka ee wadamada Khaliijka Carabta yiraahde. tan iyo markii uu dagaalka gobolka qarxay, Israa'iil waxay wajahaysay weerar isdaba joog ah oo gantaalo ah kuwaas oo mararka qaar lagu qabto nidaamka difaaca hawada, inkastoo kuwaas ay ahaayeen dhif iyo naadir. muddooyinkii dambena Israa'iil waxay ku guuldareysanaysay inay hawadeeda ay ka celiso amaba ay ka hortagto gantaalada iyo sidoo kale duqeymaha tooska ay kaga imaanayo Iiraan, iyadoona ay ku weeraraysay Iiraan gantaalo sidoo kale diyaaradaha nooca aan duuliyaha lahayn. Israa'iil oo markii hore ku faani jirtay in ay hawadeeda amaba ay iska difaacayso dagaal ama nooc walba oo weerar oo kaga imaan kara Iiraan, ayaa markaan waxay ku guuldareysatay inay hawadeeda ay ka xakameyso gantaalada iyo sidoo kale weerarada tooska ay kaga imaanayo Iiraan, iyadoona horeyba Iiraan ay wacd ay ku martay aargudasho sii socon doonta ilaa iyo muddo 6 bilood ah. dhinaca kale haddii aan u weecano, madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa wacd waxa uu ku maray inuu qabsan doono jasiiradda ugu weyn uguna muhiimsan Iiraan, taasi oo sifeysa shidaalka. waxa uu sheegay haddii Iiraan ay diido in ay wada hadal ay la gasho isla markaana ay ka soo horjeesato qodobada ee Mareykanka uu hordhigayo, Iiraan ay la kulmi doonto cawaaqib xumo, isla markaana uu weerar toos ah ku qaadi doono jasiiradda ugu muhiimsan, taas oo maalintii 99.9% laga dhoofiyo shidaalka. Trump ayaa hadalkiisa waxa uu ku soo beegmayaa xilli Iiraan ay laba jibaartay weeraradeeda tooska iyo sidoo kale duqeymaheeda bartilmaameedka, iyadoona gebi ahaanba ay ka soo horjeesatay inay wada hadal ay la gasho Israa'iil iyo Mareykanka oo 28 bishii Febraayo weerar gaadma ah ka fuliyay gudaha dalka Iiraan, kaasi oo ku geeriyooday hogaamiyihii ugu sareeyay Ayatollah Ali Khamenei iyo sidoo kale mas'uuliyiin kale. tani wixii ka dambeeyay markaasi Iiraan waxay u soo jeesatay weerar gudasho ah, iyadoona horey in qodobo ay u soo saareen Mareykanka u gudbiyay Iiraan si loo joojiyo dagaalka xilligan ka soconaya bariga dhexe, inkastoo Iiraan qudheeda ay 5 qodob hordhigtay Mareykanka iyo Israa'iil. wixii xoogay ku soo kordho macluumaadkan muuqaaladeena xiga iyo idinkugu soo gudbin doona. markana dagaalka ka soconaya bariga dhexe waxa uu yeeshay waji cusub, waxa ku soo biiraya wadamo hor leh, iyadoona dagaalka markaan uu noqday mid baaxadiisa uu ku sii faafayo guud ahaan bariga dhexe, iyadoona xaaladdu ay tahay mid aad u cokarana. Mareykanka iyo Israa'iilna ay soo food saartay xaalad aad u culus, iyadoona awood ay u yeelan waayeen in dagaalka muddo kooban ay ku soo afjaraan, maadaama qorshahoodu uu ahaa in dagaalka ay ku soo koobaan maalmo balse ay ku guuldareysteen. Iiraan ayaa waxa ay wadaa weerarada aargudashada iyo sidoo kale inay fuliso ballanqaadyadii horey ay ugu dhawaajisay ee ahaa in ay u aargudi doonto hogaamiyihii ugu sareeyay ee dalka Iiraan Ayatollah Ali sidoo kale mas'uuliyiin kale oo u dhashay gudaha dalka Iiraan. wixii xoogay macluumaad ee nagu soo kordho muuqaaladeena xiga iyo idinkugu soo gudbin doona. haddii ay tahay markii ugu horeysay uu ku soo gaaro muuqaalkeena, fadlan subscribe inoo dhigan baleelkan furo si ay ku soo gaaraan muuqaalada kale xiga. haddii subscribe inoo tahay muuqaalka inoo share garay, like inoo saar si oo gaar asxaab badan oo ku maasan tahay daawashadaada.